kulan wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamij gaar aynu kaga hadlayno doorashada Maraykanka ka bilaabatay maanta. malaayiin qof ayaa safaf dhaadheer ugu jira goobaha codbixinta si ay madaxweyne u soo doortaan. Soomaalida Maraykanka oo si weyn uga qaybgalaya doorashada Maraykanka. madaxweyne Trump iyo musharaxa Joe Biden ma aqbali doonaan natiijada doorashada. aan ku bilownay waddankan Maraykanka maanta waxaa ka socota doorashada madaxweynenimada taasi oo ah mid taariikhi ah isla markaasina xasaasi ah. 10 milyan oo codbixiyaal ah ayaa codkooda ka dhiibanaya goobaha codbixinta iyagoo kala dooran doona inuu talada 4 sano oo kale sii hayo madaxweyne Trump oo ka socda xisbiga Jamhuuriga ama uu xilka la wareego madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden oo ka socda xisbiga Dimuqraadiga. in ka badan 100 milyuun oo qof ayaa hore u sii codeeyay tiradaasi oo 3 meelood oo 2 meel u dhiganta tirada guud ee codeeyay doorashadii hore ee sanadkii 2016 oo ahayd 139 milyan oo qof. tirada badan ee dadka codadkooda hore u sii dhiibtay ayaa la saadaalinayaa in tirada guud ee codbixinta sanadkan 2020 ay gaarsiin karto heer taariikhi ah oo ka badan 150 milyan oo codbixiye. tirinta codadka hore loo sii dhiibtay ee gobollada Maraykanka gaar ahaan kuwa sida weyn muhiimka u ah ayaanay suurtagal ahayn in natiijada caawa la ogaado. natiijada kama dambaysta ayaa qaadan karta dhowr maalmood haddii codadku aad isugu dhowaadaan. doorashada madaxweynaha ka soko waxaa sidoo kale la soo dooran doonaa dhammaanba 435 kursi ee uu ka kooban yahay aqalka hoose ee Koongareeska iyo 35 ka mid ah 100 kursi ee aqalka sare ee sanadka. codbixinta maanta ayaa waxaa ka horreeyay olole doorasho oo xoog badan oo ay labada musharaxa ku loolamayeen sidii ay u kasban lahaayeen kalsoonida codbixiyaasha. xamaasadaha jiray awadeed inta lagu jiray ololaha taageerayaasha labada dhinac ayaa mararka qaarkood isku dhacayay. ganacsada qaybo ka mid ah dalka Maraykanka gaar ahaan magaalooyinka New York iyo Washington ayaa bilaabay inay goobahooda ganacsi xayndaaba ku wareejiyaan iyagoo ka cabsi qaba rabshadaha ka dhalan kara natiijada doorashada. Soomaali fara badan oo ku nool waddanka Maraykanka ayaa maanta codkooda ka dhiibanaya doorashada madaxtinimada ee waddanka Maraykanka. waxaana gobolka Minnesota ay dadku codadkooda ka dhiibanayaan meelo kala gedisan. xaafadda Cedar oo Soomaalidu ku badan tahay ayaa xarunta ku taala ee Brian Cole waxaan kula kulmay dadweynahaasi qaar ka mid ah oo codkooda dhiibanaya. waa tahay walaal magaca marka hore. magacayga waxaa la yiraahdaa Mursal Maxamed Jaamac. mursal waa u jeedaa inaad soo codaysa ayaa xabadka kugu dhagan bal iiga waran codaynta maanta ma markii ugu horeysa dareenkaaga sidoo yahay. horta waxay ila yani dareenkaygu waxa weeye inaan gutay waajibaadka aniga isaaraa oo ahaa marka dadkoo dhan ay siman yihiin ay maanta oo kale ay tahay waddankan oo qof walbaba uu yahay cod leeyahay madaxweynaha iyo anigu aan isku awoodnahay baan dareemayaa. codkaygii baan soo ritay waan faraxsanahay. markii ugu horreysay ma aha waa markii shanaad markii afraad baan u malaynayaa aan codeeyo madaxweyne ahaan aan u codeeyo iyo doorashooyin kaleba. afka ku duuban dabcan coronavirus xilligiisa lagu jiraa doorashadan maxay kaaga duwan tahay kuwii hore. wax badan ayaa miiska saaran annagu khaasatan haddaan Soomaali nahay waad ogtihiin waxaa ogtihiin in yani aanu lahay headline-ka aan saarannahay oo madaxweynihii waddanka xukumayey uu mar walbaba annagana xusayo. hadda annaguna inaanu intaan ku dagaalami karno aan ku dagaalanno waa codkeenna weeye. isaga ayaanu ridannay maantay. nin horey oo Maraykan ahaa wuxuu u yidhi dadka xun oo officialska ah waxaa doorta dadka wanaagsan oo aan codayn. marka dadka kalena waxaan ugu baaqayaa inay soo baxaan oo codeeyaan. bal marka hore waxaad ii sheegtaa magacaaga saddexan. magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdullaahi Cumar Saleymaan Master Maradona ayaan ku magac dheerahay. Maradona waxaan u jeedaa waad labisan tahay waad faraxsan tahay dabcan waad soo codaysay bal iiga waran maanta dareenkaaga iyo codayntaada sidaa yahay. maxamuud runtii aad iyo aad baan maanta u faraxsanahay. maantana waan soo codeynay haddeeraan soo codeeyey. waxaan ku faraxsanahay sidii aan u soo codeeyey iyo siday u dhacday codkii uu dhacay waan ku faraxsanahay iyo maanta jawiga oo aad u wanaagsan oo qoraxduna aad u kulusho macaan tahay. adiga maxaa muhiim ku ahaa oo doorashada sanadkan aad ku codeynaysay. waxaa mar kastaba horta anigu waxaan ka tirsanahay xisbiga Republican-kan ka tirsanahay marka mar walbaba waan muhiim bay ii tahay inaan codeeyo waan codeeyaa xisbiga Republican-kan ka tirsanahay Donald Trump baan codeynayay waxaan rabnaa Amerikana sideedii hore inay ku soo noqoto aad u wanaagsanaato ayaan jecelnahay madaxweynuhuna saas noo ballan qaaday. maxaad ka rajaynaysaa doorashada caawa.
natiijada waxaan ka rajaynaynaa in uu Donald Trump ku soo bixi doono America will be great again inay noqon doonto God bless USA inaan waxaan taageeraynaa in Ilaahay wanaajiyo Mareykanka codkiisa iyo vote-kii aan dhiibanay Ilaahay uu aqbal ka dhigo ayaan weydiinaynaa Ilaahay waxaan u rajaynaynaa Donald Trump inuu soo noqdo madaxweynaha walaal marka hore magacaaga saddexan ii sheeg magacayga waxa weeyaan Samsam Jaamac Samsam Jaamac waxaad iga warantaa bal maantay waad soo codaysay waan u jeedaa inaad stickerka codaynta uu kugu dhagan yahay bal iga sheekee maanta iyo waxaad dareemaysay iyo sida soo codaysay aad aan faraxsana leenka uu dheeraa Soomaali hadaan nahay aad isku jecelanahay leenka aad u dheeraa inkastoo ajnabi kalena aan arkay dareenkayga wuxuu yahay inaan caawirayno oo statekayga blue noqdo gobolka Ohio waxa uu ka mid yahay gobolada ay dadka badan ee Soomaalida ahi maanta codkooda ka dhibanayaan wariyaha VOA Cabdikaafi Yusuf Aadan ayaa dadkaasi dareenkooda kala hadlay halkaani waa waqooyiga magaalada Columbus waxa ka socda cod bixinta dad badan ayaa ka codeynaya oo Soomaaliduna ka mid tahay hadda garabkayga waxa taagan qof Soomaali oo ka soo baxay meesha cod bixinta magacaaga oo saddexaad igu bilow marka hore magacayga waxaa la yiraahdaa Axmed Maxamuud Cali Axmed Jeego Axmed waxaad iga warantaa waad soo codaysay maantay aadayay maartay cod bixinta u socotaa bal dareenkaaga inaad soo codaysay iga waran dareenkayga aad buu ugu faraxsanahay inaan soo codeeyo aan ku soo codeeyo magaaladayda Columbus Ohio doorashadaani ka waran maxay doorashooyinka kaga gadsantaa la oran karaa doorashadaani waxaad moodaa inay doorashooyin kale ka duwan tahay sababtoo ah dad badan ayaa sitiisana Soomaalida marka aad ay ugu duwan tahay doorashadan Cabdishakuur ku soo dhawow marka xigta waad soo codaysay saaka waad soo baxday bal marka hore dareenkaaga ka waran waan ku faraxsanahay inaan maanta codeeyo oo last day ah oo ishaga waa codeeyay marka anigu waxaan codeeyay xisbiga Republicanka oo aan taageersanahay ana aaminsanahay inuu faa'iido badan yahay community-ga iyo dhan kasta Cabdishakuur maxaad ku dooratay xisbiga Jamhuuriga maxay tahay sababaha aad ugu codeysay ku dooratay oo aad ku qanciyay adiga aniga waxay tahay mid ay less regulation sharciyadooda yar ishaga waxyaalo badan oo lagu fududeynayo waxa kale oo ku doortay camal oo kale waxyaalo badan ay dhaqaalaha hadda ay kor u qaadeen oo aad meel fiican joogay before corona ka hor magacayga waa Marwo Xaaji Saciid waxaan ku noolaa Columbus Ohio maanta waa soo foodgaray Joe Biden aan u soo foodgaray bal ka waran xamaasadda dareenkaaga sidee u aragtaa inaad codeysay maanta maasha Allah lama soo koobi karo insha Allah waxaan rajaynayaa Joe Biden inuu qaato insha Allah caaw maxaad ku dooratay Joe Biden sababaha ku dooratay ku qanciyay inaad Joe Biden u codeysay maxay tahay waxyaalo badan aan ku doortay maxaa kamid ah waxaa kamid ah banku naga qaada insha Allah oo Joe Biden uu saaray Donald Trump macnaha qaxootiga waa la keenaa hadduu Ilaahay idmo waana dhaafay doorashadan maanta ka socota waddanka Mareykanka marka ay soo baxdo natiijada codbixintu waxa uu ahaa dhaqan soo jireen ah in musharaxii laga adkaado uu aqbalo natiijada doorashada balse waxaa dhici karta haatan in madaxweyne Donald Trump iyo Joe Biden midkoodba uu diido natiijada ka soo baxda doorashada falanqayaasha ayaa waxay leeyihiin taasi waxay dhaawici kartaa dimuqraadiyadda waddanka Mareykanka wariyaha VOA Brian Biden ayaa warbixintan inoo diyaariyay waxaana soo jeedinaysa Saara Cabdi Axmed muddo 36 maalmood ah kadib doorashadii madaxtinimo ee 2000 taasi oo farqiga u dhaxeeya guusha iyo guuldarrada ay ahayd dhowr boqol oo cod oo gobolka muhiimka ee Florida musharaxa dimuqraadiga Al Gore iyo ninkii la tartamayay ee Jamhuuriga George W Bush waxa ay ku lug lahaayeen khilaaf sharciyeed oo ka dhashay tirinta codadka laakiinse kadib markii aqlabiyadda muxaafidka oo ka tirsan maxkamadda sare ay la safteen ololaha Bush Gore ayaa qirtay in looga adkaaday tartanka oo uu ku ballan qaaday inuu taageeri doono madaxweynaha soo socda ee Bush caawa midnimadeenna dad ahaan iyo xoogga dimuqraadiyadda darteed waan tanaasulay habeenkii doorashada ee sanadkii 2016 musharaxa dimuqraadiga Hillary Clinton ayaa waxa ay ku dhawaaqday mid taasi la mid ah oo ay ku hambalyeysay Donald Trump waa inaan aqbalnaa natiijada kadibna fiirinaa mustaqbalka Donald Trump wuxuu noqonayaa madaxweynaheena wuxuuna nagu leeyahay qalbi furan iyo fursad uu wax ku hogaamiyo
labadaba Gore iyo sidoo kaleeto Clinton ayaa looga adkaaday nidaamka rasmiga ah ee doorashada ee loo yaqaan Electoral College inkasta oo aysan ku guuleysan codbixintii guud ee qaranka. sanadkanse Clinton waxa ay kula talisay musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden inuusan qiranin guuldarro xaalad kastaba ha ahaatee ayadoo rajeynaysa in ololaha Trump uu ku doodi doono codbixinta waraaqaha boostada lagu sameeyo oo muujinaysa in ay ku badan yihiin dimuqraadiga. doodii ugu horeysay ee madaxweyne Biden waxa uu sheegay inuu aqbali doono natiijada doorashada laakiinse waa marka codka oo dhan la tiriyo taasina waqtigeeda ay qaadan kartaa. marka codadka la tiriyo dhammaantoodna la tiriyo taasi waa aqbali doonaa. haddii aan guulaysto taas waa aqbali doonaa. haddii aan guul dareysto taasi waa aqbali doonaa. Trump oo looga horeeyo ra'yi ururinta saadaasha natiijada madaxweynaha ayaa si isdaba joog ah u sheegay inuusan aqbali doonin natiijada doorashada haddii Biden loo arko inuu guulaysto isaga oo tixraacayo sheekooyinkii aan la xaqiijin oo la xiriiray musuqmaasuqa xagga codaynta ah. waxay heleen qaar keli ah magaca Trump maalin dhoweed oo ku jira dambiil qashin qub ah. waxay u direen 2 aag oo dimuqraadi ah. waxay u direen 1,000 cod. qof kastaa wuxuu helaa 2 warqadood. tani waxay noqon doontaa been abuur si aadan weliga arkin. falanqayaashu waxa ay ka walwalayaan diidmada musharaxa laga guuleystay inuu aqbalo natiijada uguna baaqaya taageerayaashiisa inay sidaas oo kale sameeyaan waxayna wiiqi kartaa aaminaada dadweynaha ee dimuqraadiga. khilaafka dabada dheeraada wuxuu dhaawac weyn u geysan karaa kalsoonida lagu qabo dimuqraadiyadeena iyo sidoo kaleeto sharcinimada madaxweynaha soo socda. iyada oo xiisada xisbiyadu ay aad u sareyso sanadkan labada dhinac waxaa sidoo kaleeto ku baaqayaan in doorashada qaraar ee la isku haysto ay dhalin karto rabshado siyaasadeed oo ka yimaada garabka midigta ee xagjirka ah iyo sidoo kale kuwa bidixda xagjirka ah. waa tahay daawadayaal inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka gaarka inuu maanta kaga hadlaynay doorashada waddanka Mareykanka. intaynu mar kale barnaamijkan lamida dib u kulmi doono waa mascad iyo dhammaan baabahada qubanaha VOA leh sidaa iyo nabadgelyo.